السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وهذا داود يا لاني دلو داغ ور دغدغا dagaal laga cabsi qaba inuu dhexmaro maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidamada BNPF iyo xiisad culus oo ka taagan gudaha magaalada Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag Saciid Cabdullaahi Dani ayaa halkaas waxa uu ka wadaa qashqashaado iyo inuu iska horkeeno bulshada halkaas wada degan boqolaal ciidamo ah ayuu dhowrkii saac la soo dhaafay ku daabulay magaalada Dhahar waxaana saacad walba laga cabsi qabaa dagaal weyn oo ka dhex qarxa maamulka Soomaaliya waa maamulka Puntland iyo maamulka waqooyi bari ciidanka difaaca maamulka waqooyi bari oo deegaanadooda lagu soo duulay ayaa dabcan iyagu xilligan waxay ku jiraan heegan xoogan saacad walbana waxa la filan karaa inuu dagaal halkaasi ka dhaco macluumaadka wararkii ugu dambeeyay amurta ku saabsan ayaan daawada rabaa inaan ku soo gudbiyo waxaan sidoo kale kula wadaagayaa dhaqdhaqaaqyo dhanka ciidamada ah oo iyana laga dareemayo gobolka Sanaag xilligan maxaa ka socda sideeba wax u socdaan bilow ilaa dhamaad faahfaahintiisa ayaan dabcan ku siinayaa soo dhawow haday tahay markii kuugu horeysay nagu soo biir oo subscribe channelkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo aan mar walba halkan ku daabacno sidoo kale sheekooyinkan halkan ku daabacno qofka ugu horeeya ee la socda ayaa noqon doontaa daawada ee soo dhawow muuqaaladan aad u jeedaan waa hadda waxay ka imaanayaan gudaha magaalada Dhahar waa boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan ciidanka dawlad goboleedka Puntland gaar ahaan kuwooda calooshad u shaqaystayaasha ah ee la yiraahdo BNPF kuwaasoo imaaraadku uu tababaro isla markaana Dani imaaraadku u adeegsadaan burburinta dhismayaasha maamul goboleedyada wararka aan helayna waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay la dareemay culeysyo waaweyn oo ka imaanaya darafyo kala duwan kuwaasoo la sheegay in ay xilligan qorshahoodu uu yahay in ay weerar cir iyo dhul ah ku qaadaan magaalooyin ka tirsan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Dhahar dabcan sababta ugu weyn oo halkaas ciidamada loogu soo daabulay ilaa hadda lama yaqaan maxafalada caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye ayaa la rabaa in bulshada laga mashquuliyo oo dagaal halkaas laga abuuro ma waxa jirta aragtiyo kala duwan oo banaanka imaanayso arrimaha la xiriira dabcan way soo bixi doonaan oo wixii ugu dambeyn soo daadahaba aakhirka banaanka yimaadaan hadda marka wararka la helay waxay tilmaamayaan in ciidanka difaaca waqooyi bari qaarkood oo ku sugan Dhahar ay heegan buuxa galeen dhammaan ciidamada loo sheegay inay diyaar garoobaan halkaas ay ku wajahan yihiin saraakiil khubaro oo dhanka ciidamada ah doonayaan hadii duulaan lagu soo qaado inay iyaguna jawaabaan xogta aan helayno ayaa waxay tilmaamaysaa in Dhahar xilligan ay la ciirciirayso ciidamo fara badan saacad walbana dabcan laga cabsi qaba in halkaasi ciidamadu ay isku dhacaan laakiin wararkii ugu dambeeyay oo la helay ayaa waxay tilmaamayaan hadii xaajadu sidan ay ku sii socoto in xaajadu ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin oo markaasi ay tagi doonto bahashu meel barakalay ah ilaa 4 xubnood oo saraakiil ah qaarkood waxay goordhow ii sheegeen in aysan garanayn sababta Saciid Cabdullaahi Dani oo xilligan ugu ordayo inuu weeraro Dhahar waxaad ogeedeen 3 bilood ka hor in uu ka dhacay dagaal dhexmaray maleeshiyaad ka tirsan beesha Warsangeli iyo sidoo kale ciidamada BNPF oo ciidamada BNPF ay kabahooda ka carareen waxa sidoo kale jirta dhaqdhaqaaqyo dhankaas iyo xingalool ilaa magaalada Dhahar ka imaanaya oo magaalada Baran aan dhexe ka imaanayo oo ku aadan in Saciid Cabdullaahi Dani uu doonayo in dadka deegaanka ee aayahooda iyo mustaqbalkooda ka tashaday inuu weerar cir iyo dhul ah ku qaado dadka arrimahan la socda waxay leeyihiin Saciid Cabdullaahi Dani xishoodkii waa uu ka tagay waana in la iska celiyo oo runta loo sheego laakiin waxaad moodaa in dadku wax badan ay xeerinayaan oo arrimo badan ay banaanka keenayaan isla markaana ay leeyihiin xaaladdu sidaad moodeen ma aha waa in xaaladda la qaboojiyo oo xaajada hoos loo dhigo saraakiil aan la hadalnay ayaa waxay tilmaameen in dhowrkii saac la soo dhaafay culeysyadaasi ay jireen laakiin ay dareemayaan in culeysyadaasi aysan noqonin kuwa sii daba dheeraada isla markaana ay banaanka imaan doonaan dabcan Saciid Cabdullaahi Dani mar uu baarlamaanka ka hor hadlayay wuxuu sheegay in dawlad goboleedka Puntland aysan xilligan cidna duulaan ku ahayn laakiin wixii lagu heshiiyay markaasi laga wada hadlay calaashaan arrimaha ku saabsan mustaqbalka Puntland mustaqbalka maamulka waqooyi bari in waxaas oo dhan laga wada hadlo oo maadaama markii hore la isku tagay ugu dambeyn dhaqdhaqaaqaasi halka ku dambeeyo hadii laga cabsi qaba in halkaas ay dagaal ka dhacaan talaabooyinka xilligan uu qaaday Saciid Cabdullaahi Dani ee qalafsan dawlad goboleedka waqooyi bari oo xilligan laftirkoodu
diyaar garowgii ugu dambeeyay ku jiray iyo dhaqdhaqaaq walba oo halkaasi ka soo kordha saaxiibayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe hadday tahay markay kugu horeysay nagu soo biro subscribe channelkan soo dhawaada saaxiibayaal